General Inda Cadde waxaan banaanka u keenay oo aan u codsanay inuu issharaxo inuu badbaadada dalkan ka qayb qaato oo qayb ka noqdo oo wax la wanaajiyo oo aan wax la xumayn ma ahan in wax la halaynayo marka waxa la rabaa arintaas dadka ay qusayso kursigan shirkada ku ah kuraasi maadaama ay beelbeel noqotay waxaan u soo jeedinaynaa qofkii wax idin qaban lahaa anigu waxaan hubaa saakay 9 saac oo hameynimo haddaan soo waco General Yusuf Maxamed Inda Cadde telefoonkiisu waa furan yahay uu ka qabanaya waxay taas ku tusaaleynaysaa inuu diyaar u yahay dhibkii jiraba inuu dadka la wadaago haddaad haddeer inta u soo istaagto tiraahdo warkaale waxaan ila soo qabo qof uu wali cunug yar hadduu yahay horay buu ka raacaa marka qofkaas dareenkaas leh oo dadka saas ugu naxaya inaad dhistiin oo dooratiin oo codkiina siisiin dadka kursigu quseeyo ayaa laga rabaa ma sugayno nin maaragtay inta hotel dheer seexda computer qaata yiraahda maaragtay kursigan waxaan ka soo qaatay meel ilaahay og yahay midda jirto oo kale waxa weeye waad ogtihiin kuraastii waxaan hoos ugu sii dhigayaa beel ahaantaan loo lahaa dadkii xildhibaanada u ahaa wax maanta ay ku kordhiyeen oo u qabteen oo maanta lagu faani karaa ma jirto oo la dhihi karo alla ilaahay amaanay mudan yihiin waxaasay dadkii u qabteen waxaan rabnaa marka isbedel degdeg ah dad wax qaban kara inay haddeer safka yimaadaan dadkaasna la gacan siiyo laakiin ma ahan inaan maaragtay fiirsano shakhsiyaad kursiga markay qaataan danahooda shakhsiga ku qabsanaya oo ka bacdina odayaashiina xoogaa anoon odayaasha dhaliilayn waxa lagu bartay qofka dantiisa iska wata haddii xoogaa uu la soo macaamileeyo waa ku taageeraan waxay yiraahdaan war hawshaada iska sii wado qaladka kama qabtaan odayaashiina marka waxaan idinka rabnaa inaad qaladka ka qabatiin dadka qaladaadka aan dadka wax u qabanayn oo bulshada waxba u goyn inaad maaragtay wax ka qabatiin marka waxaan codsi uguna si caama iyo si beel ahaanba Sheekh Yusuf Inda Cadde inaan garab istaagno ergada la goobno kursiga la raadino ilaa uu ka helo oo aan garab istaagno haddii taas la diido oo taas la waayo meel fadhil maynay ogaada meel iska uu fariisan maayo waxa weey waxaan rabnaa wallahi inaan meel la fariisanay waayo sida dayac ah oo dalku ku mudan yahay indhaha lagama fiirsan karo wax la fiirsan karo maaha dayacaadaas dalka waxa looga bixi karaa dad wax qabanaya oo bulshada macna ku dhaxal leh oo naftooda u sacrifice gareynaya naftooda u huraya in la dhiso marka intaasaan warkayga ku soo koobaya waana mahadsantii